هذا نوع محضرنا قدوميها iyo maartay bahda saxaafada Jubaland TV ee Muqdisho maanta sidaad ka warhaysaan waxaan u baxaynaa shirka ka furmayo Brussels oo lagu eegayo qaybo kala duwan dhanka siyaasadda iyo dhanka horumarinta ganacsiga ee Soomaaliya ahmiyadda ugu weyn hadda waxaan siinaynaa dhanka ganacsiga maadaama aan halkaasi aad ugu taxalluqno waxaana lagu soo maartay falanqeyn doonaa oo maartay horumarka aan rajaynayna in laga gaaro oo noqon doona sida maartay loo dhiirigelin lahaa soo kabashaha ilaha dhaqaalaha aan maartay dhaqaalahana uu u siyaadin lahaa in la sameeyo shaqo abuur in la sameeyo horumar dhanka wax soo saarka ah oo maartay runtii ganacsiga aad loo dhiirigeliyo waxaan rajaynaynaa inaan u helno ilo cusub oo maalgashi oo wadankan ka hirgalo in maartay la taageero aadna loo xoojiyo soo noolaashaha dhaqaalaha wadankan oo in muddo burburay oo hadda runtii dib u urasho aad u wanaagsan oo soo noolaashaha muujinayo ilaha soo dhan ayaan rajaynaynaa in go'aan laga soo gaari doono heshiis laga soo gaari doono aan u heli doono taageero cusub sida loo xoojin lahaa horumarinta dhaqaalaha wadankan waxaan rajaynaynaa in maartay horumar laga gaari doono aad baan u dhiirigelinaynaa in Soomaalidu ay aad ugu dadaalaan sida loo soo nooleyn lahaa dhaqaalaha hadduu dhaqaalaha iyagu sidoo hadda ku socdo si ka wanaagsan uu sii kobco